qaar ka mid ah ogaasyada nabadoonnada waxgaradka iyo dhalinyarada beesha Mirifle ee degmada Walaweyn oo maanta shir jirayd ku yeeshay degmada Walaweyn waxay ugu soo horjeesteen kufsi loo geystay dad ku safriyay wadada xiriirisa Muqdisho ilaa iyo Baydhabo. Gabdhahan iyo mariyay meel lagu magacaabo Ido Jalaad ayaa waxa ay la kulmeen kufsi ba'an. ugu horreyn waxaa goobtaasi ka hadlay nabadoon Maxamed Isaaq oo ka mid ah nabadoonnada Mirifle ee degmada Walaweyn waxaana hadaladiisii ka mid ah geedka maayante shir jirayd ugu baday beesha Mirifle khaas ahaan degmada Walaweyn degan shirkan jirayd geedka may ka saabsanaayay kulli sida hore la sheegay dhibaato maalin walba dhiyaasu oo jidkan oo Baydhabo ilaa xamar indhahayd oo aanu ka danqadnay maalin kasta dhibaato la sheego oo maalin kasta gabar la kufsaday oo baawar la dhacay oo dhibaato dheedi dibkan yaalo ya ka danqani iidan inay dhibti may geegan tan fadheenay odayaashan ka dhalinyartaan dhamaantan tan fadheenay inii dhibaatadii meelanka dheedi oo ka danqani waana dhibti tan kale ما هالمامي وأنا هذا إن أنا قبل أن يفيلايتي سومري دمانتي ميل ألا ميل روجي إن أنا سلام جوني أنا سلام أو سلام تسي أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومسلمين تان لهيت تاس مدن كجدو ودادن تان يلا حوش إيدي هاي ودبعت هذا لكو جمع هذا مساكنت بيلو سيدي بما يوامدي بيلو له دكد مله دكد ما يوحمروا reer Baydhabo hadii dekadaas xamar la ku gooyo waa dhibaato xoog leh idin saameeyo ilaa luuq ilaa xudur wadadii oo muhiim ka haytay oo hayti way oo dekada hayti way hadii wadadaas taase oo tuugi goosite leero dhibaato xoog leh waa ma odsadaan antaas oo waliba hadalay horta akhyaar hadal dhabkaanana kolley iskeeyo waan hadal kaleena oo danqadaan iskeeyo ma in sheegana ummadda Soomaaliya meel alla meel roogda in dib ku sugaa dib xun ee waayo gabarta la kufsaday laga dhalay laga la dhalatay laga gabo ma ogolo lan gabarta la kufsado ogol lagna ma jaro lan islaantis jidka la kufsado ogol lagna ma jaro dib ku sugaa dib iyo xun waay reer walaalaha reer gaaljeel iyadan si dhibsani armo oo suubiyaasan iyadan ka dhabsanay gaaljeel dad muslim ee walaalahan oo Soomaaliya oo muslimiinta ku mid yihiin oo walaaladan ma ku xumeeyeen laakiin way ku xunaa dhibkan iyo dhalinyarta suubiyaas dad akhyaar waliin oo culmo liin ee nabadoon liin ee walwalba liin una sidaas oo kale lamidaana laakiin onamay ana dhalinyartan odayaashan dad isku war dambeeyo isku war dhiigow dhalinyarta wal alla wali halaayas in loo anaanada koriya gabno dhalinyartan wal anaanada kor wali xun wal ku reebo kor reer gaaljeel hadii dhalinyarta iyo anaanada korno wal humaatay aan isku reebo korno dibsha wala tan ogolini tan yaa ma in sheegana reer gaaljeel odayaashi macallimiintii sheeqantii xulmaada dhamaan hooyinka dhamaan yoo isku duubayin in dhalinyartan wadada ku gobada dad walaalo waa namasdiba korna mi imaanay malas diba kor درسلي هورا أنا صدقها بيرا أنا ميرسله أنا لسه ورك فيلي ما إن شغلنا غير ولا لا نقالجل إني وضدنا بيدو إلى حمر أنت عند حيث لاج بروين إلى إيد الجلاد أنت عند حيث دوركم كان يولون عند حيث إني بتقولي له كهرو إني الشعب كي كبد بعده ولا لا رأس بارا لا رأس ولا جرو Soomaali aadaysti maadaama sharci ahayn Soomaali isku aadaysti isku qaado korto kun ka wali alwali keli laakiin dhacaga ma yama jaro kufsi wala raw ma jaro ilaahina ma banaan rasuulina ma banaan wal ilaahina ogolaan inaad ka dhaganta hadii muslimada sheegadaas wal faylama ma aysan lana mar lamaad imar saddeed mar kood ma aysan lana walaalahay jidku sugaa nabadgeel hasim kalo hadii la kala waayo Allah nagato rantaasi ma naqdaas arangadaasho xunga naqdaas mayluk yaabe iska saana isdigan ka saana isdulka saana dad isan siin ku uno bagam dhalinyartidin ku uno bagam laakiin akhyaar rugd wali xun uno ku geek soo bi bari balku anaanade
lan kasaba laga dhali wala duurkan jaraano tuugu iyo wala halaayaan iyo wala suduu wala leeyahay dhamaantood laga dhali laga ku dambeeyay laga ka dangade heraabta madi wala ka dhow laga ma hoojeen hiride may fadaan odayaashi reer Galjeel maadaama on hata gabel hebelan on haraan salbiyaan Galjeel soo isku duubani oo hadii isku nahaw ma in sheegana in jidkii lan ka ho dhalinyartii wala rafaadiyaasi wala halaayasi wala dhacaasi lagu anaanado oo nabadgelyo la ka helo tan reer Galjeel ka baagay mid kale ma ambaagay dawladda koonfur galbeed madaxweyne sida reer wasiir sida reer baarlamaan dhammaan anoo shalbiyaan madaxweyne weeyni in wadadan koonfur galbeed ka saxanta koonfur galbeed iska leh hadii wadankii adalatu gudaaji dhibaatadii ka socoto wadan gobol korna maamulada taababa isku yarba mal aan baahantaas hadii dadka sideedan gobol lan ka maamulo oo madaxweyne ka baarlamaan fadhi heer wasaare fadhi ee walwalba fadhi meelinku baahan dadkii balantan gaada ee reer koonfur galbeed shacabka ku nool waay hadii shacabka gudaaji la gumaado la madaxweyne ahli madje duubani la kalena ka dabhigo oo wadanka dhan uu maamulaan leeyahay oo shacabka gudaaji isdhamaayo oo bilaantay ila xoogaw oo xoolo la dhacaw mas'uulnimadii wal talaaso isku yarba ma sheegana madaxweynaha koonfur galbeed Abdulcasiis Laftagareen usi iyo dadkii oo usoo shaqeeyay dhammaan wasiirada baarlamaanada ima almalaaqintii baydhow dhamaantood ruugan all ma sheegana in wadadan sidii dadkii reer baydhow ilaa xudur wadadii la ku noolay oo howlbowlahayti in wadadaasi la ku nabadgel in hadii nagadu waayto nabad la helo waayo sidii munaasib shay in la marsay hadii waan la kala digo ka reebo dawladda koonfur galbeed saasan ka baagan tan kale dawladda dhaha dawladda dhaha ma aan baagane in yaan arantu fargalato wadadun tan koonfur galbeed walku weeyni dawladda federaalka ku weyn ilaahay ilaahay baas wala laakiin dawladda caalamka oo qoyseen jartu federaalka waa federaalka ciidamadeena xoog badan federaalka ma sheegana dhibaatadan shacabku la kiridahay oo waan yeedan ka mas'uuliyada in la yeelan wax goboto wadadun taas wala ka gobada hadii ciidan dego laga la dijiyo ciidan dego bari weyn la dijiyo meel walba ciidan roodal ka sameey tuug meela galaw mala may fadana mas'uuliyada dhamaantay Soomaaliya ma aan ka baagane in wadadun nabad la kaalo si nabad la kaalo si shacabku ku badbaado si dhibaatada hadda socoto ku badbaado waayo gabar Soomaaliyeed hadii geeka shalay farxumad una neeshaagi oo bulshada Twitter meelosi la hadhigay oo ka fiirsanay wallan Soomaaliya fiirsado korma lan wal muslimiin fiirsado korma wax weeyal bulsho dhiiga kookiyaya arrimahaas aan ku xunna boqolkiiba ku xunna may odsadaan mar lambaad in marsidaad man odsadaan dawladda Soomaaliya federaalka ima koonfur galbeed dhamaanto inay isku qabsadaan oo wadadan sidii ka nadiif ku wala laayeen inay ku wada shaqeeyaan أنت أسألك أصدان شركة أنت أسألك ندان وبالله توفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. كيج ميلان ما يبان سكوي. كيج ميلان ما يبان سكوي هم. وديالك مرفلة إدنا يردي يأقاشيو كل دمان وحجرت شو. meelanka kulmayeen dibkaasna way baa nakiyay arintaasna way baa nookiyay dibkii shalay ka dhii iyo daraad oo wadadan baydhabo ilaa iyo xamar indhahayd gaar ahaan iyadoo jalaad ilaa ibirweyn ilaa laga dhaxdiyo marka arintaasi way ballanaa in walno qobol dadka madaxda ah way baan sheeganay koonfur galbeed dadku wadadaas galawna eedeeda linkase kulli wadadaas hadii la sheegin kastaba kase dadkii galay ay ahay ma baahanba hadii la isku weydiiyana ma dibkaasay marka way baan baahna in oo walnay qowal kulli dadka maalin kasta hadii awaadan wal kasta dhiidon wal dhii la aragay laakiin way baa sheeganay in walnin qowal
taasi way bano ata afeefishilayno qofku macnaha hadii uu sadabku guudo walkast way lay taabiya in oo macnaha hagalaw marka way balana dadka dhibkaas jeeysidow iyoon intii ku waan tooban way isgorode macnaha marka on taasa gabagabay insha Allah ugu dambeyntii waxaa goobtaasi ka hadlay mid ka mid ah dhalinyarada ka soo qayb gashay shirkaasi jiraayid wuxuuna sheegay inuu aad ugu xun yahay isla markaana ay tahay waxaan loo qaadan karin falkaasi fooshumaa yara oo horeeyay dad badan oo horeeyay oo la erlahay oo wadadan ka saabsan la sheegay anina hadalko yara ka darsaday may ka darsaday wadadan Muqdisho iyo Baydhabo shacabka isticmaalow aadan farac badan yahay waa wadada koowaad yalla erkor oo Soomaaliga wali waa anka muhiimsan way ilaa laba dal oo Soomaali daris la ayaa iska hiraas oo Kenya ilaa Ethiopia aad dad badan iyo gaari badan iyo ganacsato badan iyo magaalooyin badan iyo gobollo badan iyo 6 gobol yeelanka adeega wali shaba dhibkan isku jarjare laakiin maalintii ka dambe هزيادة هاي قفكنا أدفك أبار صبر مرله كه وضدنا معلنت إن حنون بدن عيتي بلا مدي روك دي توم إلي لما الموت كوري قتي يا ما يكدي ذي قصة آد إن حنون بدن قفكست مسلم دين الإسلام كشيء كذا كذا ذي يا آد إنك حنون سده قفكست الصومالي إنك دان كذا ما يكدي wadada intan dhaxayta yaag burweyn iyo leega kufsi haween gabdhi yar yar tum ilaa jir tumisiyad jir 20 jir intaas gabdhoogi yar yar ay una neel dhaladeen way qofku weelaawn qof Soomaali ah way kulay laakiin qofkii dhibaatadaas ridi qof Soomaali ah ma qof walaaliis ku danqadawna ma qof gabartiyo ku danqadawna ma qof ay isku danqadawna ma qof xun way burweyn iyo leegantan dhaxaytona qabiilka digawla ka seegaal jecel way anoo in shal saarana la fiiblay ma doonan araan gaal jecel way gaal jecelna kulay muhum dad wanaagsan ka jar laakiin dad xun ka jar dadkaas xun qofkaada ka dhajar meel leeray ma gobogo ma laaygo ya meel leeray uriye dadkaas meel la faday dadka wanaagsan gaal jecelka dadkaas inay qabadan haddii qabadu waayaan hada meel faday wadanka إني هلا سوسيان مامور كوفر قلبات دولة فدرالك أبدا سيس حسن لفت قرين مامور كوفر قلبات مدهويني سو يواي محمد عبد الله فرماجو مدهوينها دالك سومالي فدرالك انتاس بما يفضانا إني ولني الأوغادان ودادان دباتة كجرت دباتة جيك إشالي بلا وطيماء أرين هورتانون لكو ديكي واي قدال كانون لكو ديكي دون لكن وليواها صبرها دماضي ما ينك باغانا Soomaali guud ahaan wadadan in ilgaar la ka fiiri dhabaatadii ku kooya soona dhabaata Soomaali aad an la xanuunsadaas in nagada doonta Soomaali wali waa wadan sidiisaba isku tabar yar dad yar oo walaalo ah way qabiile iyo qaab xun in iska dhaqmoon lagu feylay geeka qabiilka duulu koro qobsado koro ma jarta qofka meel ka safarahay walaalkaw adina meel roogda walaalshiyeeta amankii baad sii fadhiinay ada wali haysada ku qaado haweenka dharka ku dhigdo magaalka reegada dhabaatayta wali waa ma fayla soo bidan arintaas hadii raali gelin unku biina gaal jecel markii eetiin akhyaartiin odayaashiin walgaradkiin dhalinyaradeen arintaas hadii raali gelin unku biin fadaahatan ku hon ya dhiidoonta meeluu maynaska kooyaysada horeey akhyaartii oo horeeytii sheegdi akhyaartii marafla nabadoonadii ulmadii dhalinyaradii yaan iska kooyan shir jira ayda qabadeen shir nabadeed way qofna malka ambaareeyahay laakiin ay la ka ambaareeyahay dadkii wadada lagu maro way yaa la ka ambaareeyahay kaliya maana idgooni ana weerar malka qofna qofka kale farma ka taagahay ono ana dhalinyaradii iyo odayaashii reer marafla guud ahaan aan dhogna wali codsadaane wadadaas mar labaad iyo mar saddexaad inay la furo dad kalanka dhibaateyn qofkii baawur isbaarar beeso ku qaado nadiif aan ku qaadon
wadanka bay ka jarta ku qaadada korta laakiin inaadan dhibaatayn qoro xoog kufsi dil wali oo wadada intan dhahayd jiir kuulow iyo wala weyn dhatiyo intii la ka dilay hadii qabuurad oo la santusa yaabasan wal xisaab samawla xisaab korma gaarjaal meenka baaqana wadadan inay ku waanto aad anka baaqana wadadan inay ku waanto fiiri gaarjaal hoolashay may daagahayana ha ku balaaw doynuunay ilaa anta basaqada ilaa buur eeyla ilaa may daagahaya tiyeglow hoola gaarjaal daagahayan gabar gaarjaal daajyahay dog gaarjaal daajyahay waayela isku safar hayta weligay ma dheegnaan intii jara gabar gaarjaal la kufsaday ay kufsaday dadku kufsaday weligay ma dheegna kulay gabarta gaarjaal laga la dhaladay tan raac weeyna laga la dhaladay ana may arfaday mar kale ma inka baaga faday in wadadan si nidaam ee laga mara laamu madala saaray bulshooyinta Soomaaliya lan saari wadada dhan lislilay wada oo dan guud waaye caam waaye qofna ilbaab ma ku saaran qof waliba mare gaarjaal wadadan deegaan eta koonfur galbeed eta unuma ko saaran Soomaaliya isla walaalkano eta ma ka saaran ku guurnam ka liidi deganaaw hoolaga deganaadan anta sin ku guurta bay dhoo ku hegaas deg laakiin dhibaatadan hadii adag dhibaatadan la adag wada adag ku herwaayta walakin haye geel isku dhaafa ri'ada la in buura ka baaliya had email an dhow hada an daaga doon wali leega hada an daaga doon yakin hayna hoolaga ka saan balanta ka saan buura ka bay tayla kalata haafada kalata magaalo jecel la eray magaalada eeda lan ka buura ka bay ka taal nabadgariye ka nool halko gabar isku dhaafa naag waayeel 90 jir ahda waliga malko kufsan ugu gabar isku dhaaf adina may kufsaday 12 jir 13 jir waxaas wal un marna qaado doon ma ay hadii maraf leena marna ma qaadadaan arintan dawladda federaalka ma inka baaqane jidkan inay wal ku qabato maamulka Koonfur Galbeed jidku inay wal ku qabato hadii ku qabado way dhibaatadii ku koyta ay kor saarada doone gaal jecel kor saarada doon arintan ma leen aragay ana wali waaha muku hoolo badaniidi muku qatarsanidi laakiin ka heshmeeyahay walaala eta aysan abti eta geega duulan hakii ma jarta kulay akhiyaar oo dambeeyta hadalkayna ma ka gabagabaayay walaalayaalow xumaan geeka malka taliyaw walku taliyame may ka taliyaw wadadan ummadalka dhibaateeyahay dadka dhibaateeyahay dadka la dhibaateeyahay kulli walaalagan way isiin ku reebo kortaan unoon ku reebo korno hadii la reebo way nimanku un reebo waayni hadin erta sid un oo is wada jir yaga aan bar ka qabadaan laakiin hadii aad reedka giliyaas ay weeli ma oshi lanka meelaha ka dhaawac u soo dhaawac ay muqaayid aad shaahi ku siyaas hadana beesku gadaas horarkii moodo ilaa xamar isbitaal la deeraw ki bay dhow injeeda hadana dhaawac shay buura ka la deeraw marna man dul qaadadaan Soomaaliya badan Soomaaliya wali waa 500 kilometer amba 1500 kilometer ilaa Boosaaso id qof la ka dhaahay ma jirta adeena meel 20 kilometer an dhaafan ya umada ka halaagahayd mana keen dul qaadaan gaarjaal mana keen dul qaadada doona hadii aad arintan ku waanto wayta insha Allah ri'ada la taadeen wadankan ma daaga doonta wabillahi tawfiiq wa salaamu alaykum.